كسر دوّارة محاعص بودكاست حلقة دي لبية طبناب ما شاء الله وقت وأردية هذا ما تمحان ذي هينا برنامج جدو كلا هبون ما أنتوا وحين يدل تجينا ميل جري الله أو شام على قسمي أفر بقول يسديتن كيلومتر أيه وجهتها مجال هذا هرجيسة بقول يسديتن كيلومتر وحي وجهتها برعو بقول يلبية تضباطن كيلومترنا وحي وجهتها عرقابو حموغان waxa kale oo markaasiyeen cajib ku tahay waxay u jirtaa 150 kilomitir magaalada Laascaanood taw halkaas waa halkeen waxa laga furay jaamacad meel aan runtii wali jaamacad laga furin iskaba dhaafay iskuulada waaweyn aanay ku badnaynba maanta halkaas ayaan idin hayaa oo jaamacadii ugu horeysay imika ay wada socoto muddo 2 sanadood ah Dr. Khadar Barre ayaa wuxuu ka xog waramayaa jaamacadda markii la aasaasay sidii loo aasaasay iyo sababta loo geeyay magaalada lagu magacaabo Garadag khadar ku soo maxaa cusub ku dhaw aad baad maasanta aadan faraxsanahay inaad maanta noo timi Garadag iyo jaamacadda IBU Allah ya naxariis marxuumkiye bal sharax guud naga sii marka hore aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan xalqadii 12aad aan nasiib u yeesho inaan fadhiisto podcast-kan qaabkiisuna ku cusub yahay reer Soomaaliland oo dhan aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa soo dhawaantiina haddaan ku soo dhawaado jaamacadda waxaa la aasaasay ama laga diiwaan geliyay Somaliland 2016 bishii 7 22keedii waxaa dhagax dhigeeda la dhagax dhigay 2019 bishii 9aad kowdeedii halkaas oo dhismaheedii ka bilaabmay waxaa dhagax dhigeeda la bilaabay 2017 bishii 10aad waxaana dhismaheeda la bilaabay 2019 bishii 9aad waxaana dhameystirantay bishii 5aad 2023 waxaa la furay ama academic yearkii ugu horeeyay la qaatay furitaankeeda la furay 13 bishii 8aad 2023 halkaas oo xaflad weyn oo runtii reer Somaliland oo dhan mudakarkoodu ay ka soo qayb galeen lagu furay waxaana academic yearkeedii ugu horeeyay uu bilaabmay 23 sanadkii 23 soo dhaafay bishii 10aad ayuu batchkii ugu horeeyay la qaatay waxaana halka ku soo gabagabay sanad ay inay jaamacaddu runtii furan tahay waa dareemi kartaa jaamacadda intaas oo dhan 2016 la asaasay ama la hirgel la sameeyay 23 la furay macnaha inta u dhaxaysa waxa weeyaan de macna weyn in ay leedahay weeyaan jaamacadda markii hore ayaa aasaasay jaamacadda waxa aniga ay Allah naxariistay Ibrahim Xaaji Barre Nuur yaaniga Khadar Cilmi Barre Nuur ayaa aasaasnay anaga rajis garaynay Ibrahim Barre Nuur waxa ninkii la dhisay jaamacadda qarashkeedii ugu horeeyay iyo lacagtiisii ku bixiyay soo jaamacadda uga hirgeliyo magaalada Garadag waxaana uu ku doortay magaalada Garadag awalan in taariikh beelada Garadag waxa ahayd magaalooyinkii ugu horeeyay 50yadii laga furo school primary gobolada galbeedka bariga laga furo bay ahayd Ibrahim Barre Allah naxariiso wuxuu ahaa ardaygii ugu yaraa ee ugu horeeyay ee laga qoro dugsiga hoose dhexe ee magaalada Garadag ومع ذلك waxay himilo weyn oo family-gooda ku jirtay in laga furo maxay haytay maalin maalmaha kamida jaamacad Garadag laga furo waxa kale xusud mudan in markii dagaaladii 90yadii 88kii dagaalkii dhacay dib loo soo noqday Garadag waxa noqotay magaalada kaliya marka Hargeysa laga yimaado dugsi sare loo sameeyo qurbo joog magaalada inta uu kacay ay dugsi sare u sameeyeen oo iyadana cirgaabana laga bixin burcana laga bixin meelo kale gobol wadanka intiisa badan laga bixin ayaa dugsiga sare Garadag laga baxay macnaheedu waa meel taariikhiyan waxbarashadeeduna ay dadku ay u soo jeedaan meesha buqacada laga dhisana bardayaal ciyo baa la yiraahdaa runtii waa buqacad aad moodid in loogu tala galay hooy waxbarasho inay tahayba way khadar bal aan gudgal jaamacadda maxaa lagu bartaa jaamacadda sanadkii ugu horeeyay waxa lagu bilaabay 3 faculty oo computer science electronic engineering iyo environmental science why aanu dooranay saddexda anaga waxaan ka qaadanay jaamacadda moota in quality la sameeyo jaamacadda quality yeelato in order in quality hesho saddex arrimood weyn la helaa
وإن لها شهادة recognizer أو ميل لقب بحنية معنا أصلا أرديكم مركب بحر شهادة دي معنا أصلا معلمين تيلا environmental في عن environment area في عنه وحكودي كرام مركا سدح مادة وسدح مادة أو دبده حرير لا سيدا electronic engineering يا computer science كله بدأ بمراكا أيان حرير لا لأن هاي environmental science كان إنجليز كأيان حرير لا لأن مركا سيدا صايان وقبلوني سنة كان وحنكو سكر ديني بقى شن مادة كلا وحنكو سكر geology أو رنتي نيم بروفيسور نقصه محمد يوسف لي هذا نقول حري جامعات كتالة إمارات كا نقول حريه waxaan kusoo kordhinay telecommunication engineering waxaan kusoo kordhinay agriculture waxaan kusoo kordhinay nursing iyo midwife marka anagu ujeedadeedu waxaa tahay maado kastoo aan dhigayno inay u helaan ardaydu shahaado muctarifa oo meel looga raadiyo aanay IBU keligeed aanay bixin way khadar jaamacadda markaas yaa dhiga jaamacadda waxaa dhiga laba macallin bay leedahay jaamacaddu maado wal kasta oo la dhigo laba macallin baa jooga minimum master education haysta waa inuu macallin karto waxaa noo dhigaya anaga master buu haysta minimum kuwa dabadda wax uga dhigayaana waxay haystaan master iyo PhD qaarkoodna over 20 years iyo 30 years experience ayay fiilkooda u leeyihiin let's say computer science oo kale waxaa noo dhigaa nin ka soo baxay waddanka gudihiisa degrees ku qaatay Ethiopian mastertiisa ku soo qaatay at the same time waxaa noo dhigaa nin Mareykanka joogo Dr. Joe Rahman la yiraahdo oo nin doctor PhD haysta oo over 20 years wax ka dhigayay jaamacada wax ka dhigayay environmental science oo kale waxaa noo dhigaa nin dhalinyaro oo isna mastertiisa Ethiopia ka soo qaatay waxaa nooga dhigaa nin iminka consultant ka dowladda Qatar consultant oo jaamacad Ingiriis ka soo baxay oo over 15 years experience haysta marka anaga maado kastoo la dhigo waxaa noo jooga macallin gudaha nooga dhiga wax iyo macallin dabadda jooga oo fiilkiisa leh online ku dhigaya in maxay tahay meeshiina jooga Englishka marka laga rabo Englishka isaga waxa noo jooga macallin ajnabiya oo shanta cashaba ardayda wax u dhigay isaga oo ardayga from Saturday to Wednesday da u dhiga xiisada Englishka u dhiga si kor loogu qaado luqadooda Englishka loogu qaado ka macallinka ajnabiga isagu uu jooga macallimiinta kale ay joogaana waa Soomaali macallimiinta ajnabiga ahina online ayay ku soo galaan inta marka waa online and offline labadaba waa online and labadaba way كلي مركز جامعة بلابيو لديسيو لأساسيو وعيارة ما أنتي مكاودين محاد كبرتين أولاً وارن إن جامعة الله أساسها رنتي وحسالا معها بدك أنكو قدر وحويان جامعة دني معها مالين كسر عي قلبي جيجا ولا سك أساسي ووقت دير رنتي لبلانجريني ولا فكري waxaan ka baranay inaanay easy ahayn in dadka waxbarashadooda lagu ciyaaro waa qofku jaamacadda laba stage buu qofka bilaadanka ah mid waa stage-ka asaasiga ah ee uu waxbarashada asaasiga from primary intermediate iyo secondary ku dhammaystirayo ta kalena waa ta shape gareynaysa future-kiisa marka ninka yiraahdo jaamacad baan dhisayaa wuxuu ku ciyaarayaa future-ka qofka bilaadanka ee wax barayo marka haddaadan quality-geeda adkaynin haddaadan waxbarashadeeda adkaynin haddaadan nidaamkeeda iyo management-keeda adkaynin runtii wax sahlan maaha waa ta keentay inaan 2016 la hirgeliyo 2023 la furo ardaydu xagee ka timaadaa ardaydu ma badna iminka ardaydu from waxay u badan tahay gobolada Soomaaliland oo dhan ma oran karo laakiin waxay u badan tahay Maroodijeex Togdheer iyo Sanaag ardayda iminka dhigata waana dareemi karaa waayo dee arday dhowr iyo 20 jaamacadood ba wadanka ku yaala marka qofku jaamacad cusub waa inay bartaan tayadeeda iyo qiimaheeda bartaan marka ardaydu saddexda gobol bay hadda moment u badan yihiin Togdheer Saaxil Togdheer Maroodijeex iyo Sanaag way in marka laga hadlayo goobta ku taala hore waxaan u sheegay 480 kilomitir ayay ku taalaa jirtaa burco 180 kilomitir bay u jirtaa ceerigaabo oo ah magaalada ugu dhow ee ugu weyn waa hostaa 112 kilomitir haddii aad maanta jaamacadda aasaasteen sababtoo aasaasteen halkaa u geysan maxay tahay waan horta magaalada Garadag waa magaalo taariikhiya oo magaalada Soomaaliland ka caana
ومقالو أفر قبل دحدود كتالا سيدان كو شيء برعو حوجي سابقولي 60 كيلومتر ساعة شاكتي أرجع واحد كسوق سابقولي 7 كيلومتر واحد بدن لا سعانود حقا يو قبل كس سول وحوجي سابقولي 60 كيلومتر حدي حقا لقى كلا قبل كساحل مقالة بربرة انتهى إن لقوا بينا وجرتها مقالة تاريخية نمبر 2 سان هروس شجوا مقالة وحبر شكو ونكسن نمبر 3 وقفك أرضي هذه الشير وحبرانية waxa u wanaagsan haddaad u fiirsato dadkeenii hore 8 waxa ka horeeyay meelaha waxbarashada loo tugi jiray waa dayaxa waa maxay haytay sheekh waa amuud ma hin magaalooyin waaweyn way dadka loogu diri jiray because qofku wuxuu helayaa chance buu helayaa waxbarashadii uu keligii waxbarashadiisa ku mashquulo kaliya halka hargeysa inanku markuu ka soo rooxo jaamacadda maqaxisi mar halkan sii mar saaxiibadii aad ku bad ciyaar waxa uu ku mashquulayo halka focuskiisa oo dhan wuxuu galinayaa waxbarashadiisa marka waxaan leenahay focuskiisa oo dhan baan doonaynaa in ardayga uu helo waalid baane barnaamijkan aan daawanaya waxaan doonayaa ilmahayga inta buurma ka soo kaxiyo inaan garada geeyo bal ii sheeg saddex wax oo jaamacadda ilmahayga u keeno aad iyo aad baan ugu faraxsanahay su'aasha muhiimka ah weydiisay maxaan ilmahayga u keenayaa meesha saa ugu fog intaasoo kilomitir u jirta caasimadii Boorama hadalkeeda bada saddex simbal baan ku siinayaa ilmaha yar wuxuu u baahan yahay la talin 24 saacadood joogta jaamacadda markuu galayo ilmaheenu 90% waxa u galaan saaxiibkii wuxuu qaatay buu galaan annagu waxaan sameeynaa ilmaha waan wareysanaa xafiis dan baan u furnay waan wareysanaa backgroundkiisa eegnaa wuxuu ku wanaagsan yahay baan eegnaa maadooyinkiisa uu dugsiga sare qaatay baan eegnaa waxa uu ku fiican yahay baan kala talinaa guidance fiican baan siinaa waa koobaad talabaad ilmaha wuxuu helayaa wax allaaliyo waxa noo yaala smart board baa noo wada yaala jaamacadaha waxa la jaan qaadaya ilmaha yar maaha jaamacad uu iska soo fadhiisanayo kursiga miis kaliya ee wuxuu ku baranayaa sidii jaamacadaha dabadda wax looga baranayay ayaa wax looga baraya number 3 waxa baraya macallin not only inuu maadadiisa takhasus yahay xataa wax ku dhigay oo macallin ah waa inaad macallin noqoto iyada laftigeeda takhasus dheeraada oo u baahan inaad qofka wax u gudbin karto oo wax u sheegi karto waa takhasus dheeraad marka ilmuhu wuxuu helayaa macallin takhasus u leh fiilka uu dhigayo oo 24 saac full time oo ah oo aan jaamacadana galin hore dhigayn jaamacadana galin dambe dhigaynin oo u available at 7:30 in the morning illa iyo 9 habeenimo available oo ilmaha ah ayuu helayaa ilmahaas ilmuhu wuxuu kale helayaa environment waxa ku taala jaamacadda 4 kilometer square baa u xiran waxa ku yaala library waxa ku yaala computer labski electronic labski waxa ku dhaxtaala meeshii aan u sameynaa imka basketballka iyo kubadda lagu ciyaarayay so basically wuxuu ilmahaasi dibad uga baahan ma jirto waxa imka la dhisaya ilmaha qaar la dhisaya aan bilaabana October-tan la bilaabaya meelihii ay seexanayeen oo even internetka anaga aan isticmaalnaa waxa weeyaan one of the fastest ama koogu faahsan internetka Soomaaliland at the moment markuu campuska soo galo ilmuhu ayaa la garanayaa inuu xataa campuskii jaamacadda ku dhex jiro oo garanaya macdalika ilmuhu wuxuu leeyahay library oo 24 saacadood fadhiisanayo waxaan u diyaarinay online library oo over 100,000 books ku jiraan oo ilmuhu kaga faa'iideysan karo jaamacadda gar adag haddii la doonayo in la soo xiriiro xagee laga soo xiriiro yes jaamacadda waxay leedahay awalan website bay leedahay website keeda waxaa leedahay xagga hoose ku qori doona ibarreuniversity.net waa koobaad waa lambarada website-ka iyo wixii dhan macluumaadka ka helisan waxay leedahay Twitter account ama sida loo imka loo bedelay X all social media leedahay waxay leedahay telefoonno Mareykana iyo kuwa Ingiriisa iyo kuwa Soomaaliland intaba walaad soo qofka Soomaali outside of Somaliland ka baxsan UK oo kala jooga number UK bay leedahay oo kala soo xiriiri karo qofka USA jooga ama North America oo dhan jooga number North America oo bilaash oo kala soo xiriiri kala leedahay shahaado noocee ah markaan ka baxo computer science ma shahaado jaamacadda quraba ah ama shahaado recognition oo caalamka la jaan qaadaysa Ibarre University ama Ibrahim Barre University waxaan xiriir la leenahay anagu jaamacadaha dibadda waxaan la leenahay one of the biggest centers in UK
weliba IT-ga bixiya ilmaha ka baxa ay shahaadada qaataan shahaado muctarifa oo meeshuu doono uu la tegi karo oo la kula shaqayn karo ayuu helaya at the same time inta uu coursekiisa computer science ka dhiganayo wuxuu opportunity u helaya inuu hadduu Cisco doonayo inuu qaato gaar u qaato hadduu Microsoft ka doonayo hadduu any other certificate doonayo professional doonayo in examkiisa loo diyaarinayo qaadan karo خضر برا عادي هذا دكتور خضر برا عادي عاد ما سنتي وقت النص صورتي وحنور جينا جامعة قرأ إن المركز يقول